halkan ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta. Gabadhan waxaa lagu magacaabaa Cowley. Waxa ay soo booqatay familkeedii iyo carruurteedii iyadoo ka maqnayd muddo aad u fara badan. Aad ayay ugu xiistay inay carruurteedii aragto. Dantuna uma saamaxaysa inay carruurteeda la noolaato. Isla markiiba carruurtii guriga ayay ku xarinaysaa. Kadibna waxay salaamaysaa walaasheed. Waxayna ku khasbantahay inay halkan isaga tagto. Waxayna ogaatay in loo soo diray nimankan gaangiska ah. Cowley ex-keedii hore ee carruurta ka dhalay waxa uu noqday gaangiska ugu weyn magaalada. Dhammaan magaalada dhan ayay ka raadinayaan. Cowleyna waxay halkan ku qarinaysaa carruurteedii. Isla markiiba Cowley waxa lagu qaracay muraayada gaariga waxaana lagu khasbay inay muraayada dejiso. Isla markiiba ninkan oo dukaanku haysta halkan ayaa la hadlaya ilaa markii dambe uu ninkani ku xanaaqay kadibna uu la soo baxay baaskoolad waxa uuna ku dhuftay madaxa. Waana group aad u halis badan ilaa markii dambe Cowley aad u oyday kadibna ay ka qoomamaysay wiilkan maskiinka ah ee sida dhibka yar lagu dilay. Isla markiiba gaariga ayaa lagu soo jabiyay waxaana khasab looga soo saaray gaarigii. Ninkan ayaa qabtay ilaa markii dambe gaarigii madooba ay xagga dambe geliyeen. Ninkan waxa uu wacaya ninkii gaanka ah waxa uuna ku leeyahay xaaskayga waa soo qabanay. Ninkan gaariga ka soo degaya waxa lagu magacaabaa Jake waana askari hore oo ka tirsan ciidamada Mareykanka muddo badan u shaqeynayay. Waxa uu ka soo dagaalamay wadanka Ciraaq iyo sidoo kale Afghanistan. Waxa uu imaanaya lamaanahan ilaa ay ka cabsadaan ilaa markii dambe uu dhulka ka soo qaaday sigaarka ay dhulka ku tuureen kadibna waxa uu tusayaa meesha saxda ah ee loogu talagalay in sigaarka lagu rido. Jack waxa uu ku nool yahay kaymahan aadka waaweyn ee cidlada ah. Saaxiibkii ayuu dukaanka ugu yimi waa ayna sheekaysanayaan halka Cowley ay wataan nimankii gaagistarada ahaa. Cowley waa ay suuxsan tahay waxayna ku jirtaa xagga dambe ee gaariga. Odagani weli waxa uu la hadlayaa ninkii ka sareeyay waxa uuna u sheegayaa inay soo qabteen laakiin markiiba uu xanaaqaya boosku waxa uu ku leeyahay waa inaad ilmihii ii soo raacisaan ilaa uu markii dambe ku xanaaqay. Cowley waa ay soo naaxday waxayna isku dayaysaa inay ka baxsato halkan ka hor inta aan la geyn meesha loo wado. Cowley waxay isku dayaysaa inay furto daaqada dambe ee gaariga. Waxa uga dhiman in yar inay halkan ka baxsato una furmo gaariga xaggiisa dambe. Nimankani ma oga waxa xagga dambe ee gaariga ka socda. Isla markiiba Cowley waxay banaanka ula soo baxday gacantii iyadoo isku dayaysaa inay iska furto albaabka daaqada. Nasiib wanaag waa ay ku guuleystay inay iska furto waxayna door biday inay isku turto laamiga. Si xun ay dhulka ugu dhacday laakiin nasiib darro nimankii gaagistarada waxay ka arkeen muraayahada gaariga ilaa isla markiiba gaariga istaajiyeen. Waxay isku dayeen inay gabadhan soo qabtaan halka nimankii gaagistarada ay isqaybiyeen. Cowley waa ay cararaysaa waxaana isku dayaysaa inay ka badbaado. Mid ka mid ah gaagistarada ayaa soo dabagalay waxa uuna ka soo booday birtii ay ka booday. Waxa ay soo wada galeen kaynta. Cowley waxay isku dayaysaa inay ka baxsato halka odaygan uu jaha kala maray. Halkan waxa jooga Jack waxa uuna rabaa inuu halka ku qadayo ilaa uu markii dambe maqlay codka qaylo ka soo baxaysa kaynta. Isla markiiba qorigiisa ayuu diyaarsaday. Ninkan garanka cadna weli waxa uu raadinayaa inuu qabto Cowley. Isla markiiba waa uu isdiyaariyay Jack waxa uuna dareemay inay kaynta ka jirta halis aad u badan. Isla markiiba Cowley waxay arkaysaa alaabtan halkan looga tegay waxayna dareentay in halkan qof uu joogo. Halka Jack uu isku dayayo inuu ka maamulo xagga sare kaynta si uu u ogaado cidda is erganaysa. Ninkii gaangistarka waxa uu soo dhawaaday gabadhii Cowley ahayd. Cowleyna waxa ay soo qaadatay alwaaxan si ay isaga difaacdo. Ma haysato wax hub ah balse ninkii ayaa u soo dhawaaday Cowley ilaa markii dambe alwaaxan madaxa kaga dhufatay. Isla markiiba ninkii waa uu soo kacay waxa uuna la dagaalamaya Cowley. Geedkan ayuu ku dhuftay Cowley. Cowley waa ay wareertay ilaa markii dambe dhulka ku dhacday. Waxa uuna qabtay cunaha si uu dilo laakiin nasiib wanaag waxay gacanta leeshay dhagaxan kadibna waxay kaga dhufanaysaa madaxa. Isla markiiba waa ay kala boodeen. Jackna waxa uu ka soo degay geedkii waxa uu la hadlaya gabadha waxa uuna ku leeyahay ma doonaysaa wax caawimaada ilaa ay ku tiri haa. Jack isla markiiba xabad ayuu caloosha kaga dhuftay ilaa uu mid kale u raaciyay kadibna ay kaga dhacday madaxa. Halkaas ayuu ku dhintay ninkii gaagistarka ahaa. Cowleyna waa ay badbaaday. Cowley iyo Jack way cararayaan kadibna waxay maqlayaan xabadda ninkan uu soo turayo waana ninkii dhintay saaxiibkii. Ninkan wuxuu arkayaa saaxiibkiisa oo meyd ah aad ayuuna uga xun yahay. Isla markiiba waxa uu soo laabtay saaxiibkii waxa uuna ku yiri waa uu dhintay saaxiibkeen waana meesha iskaga tagnaa. In yar markay socdaan nasiib wanaag waxay arkeen gaarigan cidlada ah waxayna garteen inuu leeyahay ninkii dilay saaxiibkood. Isla markiiba gaariga ayay muraayada ka jabinayaan waxayna baarayaan inay ka helaan wax macluumaad ah. Waxay ka heleen waraaqihii uu kusoo adeegtay iyo sidoo kale ID kaarkiisii. Jack iyo Cowley waxay dhex socdaan weli kaynta. Waxa uu ku leeyahay iga warbixi maxay tahay sababta ay ku doonayaan nimankani. Labadii nin ee gaagistarada waxay yimaadeen dukaankii ugu dambeeyay uu ka adeegtay Jack. Waa ay soo galeen waxayna arkeen ninkan. Kadibna waa uu la hadlay waxa uu ku yiri maxaa rabtaan ilaa ay markii dambe xabad ku qabteen. Magaca ninka ayay u sheegayaan waxayna ku leeyihiin waa inaad noo sheegtaa ninkaas meesha uu degan yahay macluumaad ku saabsan haddii kale adiga ayaa ku diri doonaa. Isla markiiba waa uu baqay waxa uu sheegayaa ninkaas inuu yahay askari hore ciidamada Mareykanka ah laakiin markiiba waa ay dileen. Jack saaxiibkiisana halkaas ayuu ku dhintay. Cowley waxay ku leedahay waqti badan ay qaadanaysaa in arrinta kaaga sheekeeyo ilaa ay markii dambe gacmaha iskeliyeen halkaas ayayna ku saaxiibeen. Gaagistaradii waxay la hadlayaan booskoodii kadibna waxay u sheegayaan in mid ka mid ah ciidamadoodii uu dhintay laakiin isla markiiba waa uu xanaaqaya Daniel waxa uu ku leeyahay idinka ayaa dhiman doona. Habeenimo ayaa la gaaray. Jackna waxa uu keenay gurigiisii Cowley kadibna waxa uu furay albaabka si ay u soo gasho. Guriga ayay soo gashay halkan ayay caawa joogayaan ilaa markii dambe ay ka codsatay inuu telefoon siiyo. Telefoonkan ayay kula hadlaysaa carruurteedii kadibna waxay u sheegaysaa inay caafimaad qabto. Aad ayay u faraxsan tahay maadaama ay garab heshay Cowley. Gaangistaradii halkan ayay joogaan kadibna albaabka ayaa lagu soo warqaraya waxa uuna imaanayaa ninkan Afrikaanka ah waana shiishahan ku takhasusay dilalka qarsoodiga ah. Isla markiiba kombiyuutarkiisa ayuu la soo baxay waxa uuna baarayaa Jack xogtiisii oo dhan ilaa markii dambe telefoonka la hadlay booskii kadibna uu ku yiri ninkani waa askari Mareykan ah waxa uuna qabaa tababar. Dhammaantoodna waa ay cabsanayaan.
subaxnimadii ayaa la gaaray. Jack iyo Coley waxay daaqadan ku cabayaan kafee kadibna waa ay sheekaysanayaan. Jack gurigiisa hareerihiisa oo dhan waa uu miineeyay si haddii cadow ugu soo dhawaado uu la qarxo ilaa markii dambe ay miina qarxday. Waxa uuna gartay in gurigiisii lagu soo dhawaaday cadowna uu dul joogo. Ninkan Afrikaanka ayaa isla markiiba diiradda ku shiishaya waxa uuna doonayaa inuu dilo Jack ilaa markii dambe uu xabad kala helay garabka midig. Degdeg waxa guriga u soo galaya ninka odaga ahaa kadibna waxa uu gacanta ku dhigaya gabadhii Coley ahayd, laakiin Coley waa iska celinaysaa ilaa markii dambe uu Jack indhaha kala furay kadibna arkay in Coley uu ku dhagan yahay ninkani. Isla markiiba Jack waxa uu soo qaatay kursigan waxa uuna kaga dhuftay ninkii gaanka ahaa madaxa, halka ninkii shishaanka ahaa uu kala hadlayo telefoonka uu ku leeyahay ku dhufa xabad, laakiin xabadii labadooda midna kuma aysan dhicin. Coley waxay soo qaadatay qorigeedii kadibna waxay xabad lugta kaga dhufanaysaa ninkan halkan taagan, halka ninkii Afrikaanka ahaa weli uu doonayay inuu Jack dilo, laakiin nasiib wanaag Jack ayaa xabadii kala hormaray ilaa uu markii dambe kaga dhuftay isha, laakiin kuma aysan dhicin xabadii. Isla markiiba Jack waxa uu maqlayaa cod qayla ah ilaa uu markii dambe si arxan daran ugu dilo. Koobka shaaxa lagu karsaday elektarooniga ayuu wejiga ka saaray ilaa uu wejigiisii oo dhan gubay, kadibna uu madaxii kaga qaraacay kirligii uu haystay si weliba arxan daran, madaxiisina waa uu burburay. Mar kale Coley iyo Jack way soo raacayaan. Danny waxa loo sheegay mid kamid ah askartiisii la dilay, aad ayuu murugaysan yahay. Askarigii kale ee dhaawaca ayaa guriga soo galay kadibna wuxuu arkay saaxiibkii oo wejiga si xun looga dilay. Jack xabad ayaa qoorta ka sartay waxaana ka socda dhiig aad u fara badan. Ninkii Afrikaanka ahaa waxa uu soo galay gurigii uu Jack ka baxay kadibna wuxuu arkay ninkan sida arxan darada loo dilay. Weli waxay dhex socdaan keynta isla markiiba waxa uu maqlay xabad. Jack waxa uu yiri qorigan qabso halkana istaag. Waa ay baqsan tahay Coley waxayna qaadatay amarka uu siiyay Jack halkan ay istaagaysaa ilaa ay markii dambe aragtay mid kamid ah gaangistaradii kadibna waxay kala hormaraysaa qoriga waxa ay ku leedahay istaag ha is dhaqaajin. Isla markiiba uu la hadlay waxa uu ku leeyahay aniga ayaa ku badbaadinaya, waxaan rabaa in adiga iyo carruurtaada nolol fiican ku noolaataan. Ilaa markii dambe Jack gadaal ka soo maray kadibna uu caloosha ka geliyay mindi. Coley aad ayay u qaylinaysaa waana isku naxday, halka Jack uu weli mindida caloosha kaga hayo ninkii. Dhulka ayuu ku tuuray. Jack waa uu xanaaqay waxa uuna ka xanaaqay hadalka gabadhan. Waa uu imaanaya waxa uuna ku leeyahay ka fakar ilmahaaga iyo carruurtaada. Jack waxa uu yimi mishinkan kadibna waxa uu isku dayayaa inuu daaro waana mishinka alwaaxda lagu jaro si uu ugu dilo. Coley aad ayay u muruganaysaa waxna kama qaban karta arrintaas, waxayna aragtay inuusan ahayn Jack nin naxariis leh. Waa ay kasii jeesanaysaa ilaa uu markii dambe soo jiitay ninkii kadibna uu dul saaray mishinkan. Waxa uuna doonayaa inuu laba u kala jaro. Mishinkii ayuu daartay. Coleyna waa iska ooyeysaa ilaa markii dambe uu laba u kala jaray. Waa uu imaanaya waxa uuna ku leeyahay Jack waxa uu ku dhagayaa Coley waxa uuna ku leeyahay ka fakar mustaqbalkaaga iyo carruurtaada, iskana celi cadowgaaga. Ilaa ay markii dambe habsiisay waa ayna ka baqaysaa ninkan. Aad ayay u murugaysan tahay laakiin waa uu fahansan yahay Jack. Ninkii Afrikaanka ayaa soo dabagalay waxa uuna arkay mid kamid ah saaxiibadii oo halkan qoorta looga jaray. Isla markiiba telefoon ayuu diraya waxa uuna sheegaya Daniel in askari labaad la dilay kaligiisna uu ku soo haray mishinka. Waa ay soo soconayaan Jack iyo Coley ilaa uu markii dambe maqlay cod ka imaanaya dhinaca keynta. Isla markiiba wuu isku naxay waxa uuna soo dhaqaaqay dhinaca keynta si uu ogaado codkan halka uu ka imaanayo, balse waa gabadhan iyo wiilkan oo aan qaybta hore ee filimka ku soo aragnay. Waxa iskaga baashanaya halkan iyagoo khamri ku cabaya. Jack ayaa u yimi waxa uuna ka damiyay samaacadii. Waa isku naxeen waxa ayna fiiriyeen dhaawaca ninkan ku yaala. Kadibna wiilka yar ayaa weydiinaya dhaawacan laakiin waxa uu koranaya wax ma qabo. Aad ayay uga baqayaan ninkan qoriga sitay dhaawaca ilaa markii dambe uu u qayliyay Jack kuna yiri ha dhaqaaqina. Kadibna waxa uu dhulka ka soo qaadaya sigaarkan halkan lagu tuuray. Waa uu ku qaylinaya waxa uuna ku leeyahay yaa sigaarkan halkan ku tuuray, laakiin wiilkan waa uu dafiraya waxa uu ku leeyahay sigaarkan ma naqaan cidda cabtay halkan ayaa ugu nimi. Ilaa markii dambe saaxiibtii ku qayliso ku tiri anaga ayaa cabnay. Jackna waxa uu dhaqaaqay dhinaca gabadha si uu dilo laakiin saaxiibka ayaa ka qabanaya ilaa uu markii dambe nabarka ka danqay. Coleyna waa isku naxday. Jackna waxa uu dilayaa wiilkii yaraa ilaa uu madaxa feer kaga dhuftay. Gabadhii saaxiibtiisa ayaa soo dhaqaaqday si ay ula soo baxday suntan, halka Jack uu meel walba dhiig ka keenay wiilkii. Ilaa markii dambe gabadhii ku soo orday si ay suntan indhaha uga buufiso laakiin waa uu iska qabanayaa. Sunta ayuu ka qaaday waxaana isku dayayaa inuu iyada laftirkeeda ku dilo ilaa markii dambe ay Coley u timi si ay uga qabato laakiin waa uu kala tuuray. Saaxiibkeeda ayaa soo naxaya kadibna waxa uu soo qaadanaya badiilkan halka yaala, halka Jack uu gabadhii suntii afka kaga qabtay. Wiilkii badiilka ayuu la soo xaray ilaa uu madaxa kaga dhuftay. Mar labaad ayuu siri ugu celi laakiin waa uu iska qabtay Jack. Waxa uuna ka jaray qoorta halkaas ayuuna ku dhintay. Coley waa ay qaylisay waa ayna baqday ilaa markii dambe ay qorigan soo qaadatay si ay u disho Jack laakiin markiiba wuu ka gaaray waxaana qoorta kaga qabtay badiilkan. Gabadhii sunta uu ku buufiyay waa ay rafaadsan tahay ilaa markii dambe Jack uu gacanta soo qabtay Coley kuna yiri adigu gacantaada ku dil. Ninkii Afrikaanka ayaa waxa uu maqlayaa xabad dhacday halkaas ayay ku dhimatay gabadhii. Coley waa ay quusatay waxa ayna ogaatay in halista ay ka soo carartay mid ka daran ay gacanta u gashay. Jack waa uu imaanaya waxaana ku leeyahay adiga iyo ciyaalkaaga aniga ayaa iska leh. Way soo dhaqaaqayaan Jack iyo Coley ilaa markii dambe ay sunta la soo baxday kadibna indhaha kaga buufisay. Jack waa uu wareeraya ilaa uu xabada meel u tuura garan waayo kadibna dhulka ayuu ku rafanaya waxaana indhihii ka galay suntii. Waa ay cararaysaa ilaa markii dambe aragtay webigan cidlada way ka soo laabanaysaa waxaana isku dayaysaa inay cararto. Jackna waxa uu indhaha isaga shubaya Sprite si uu ugu nafiso. Geed kale ayay isku qarinaysaa Coley laakiin Jack qorigiisa ayuu soo qaatay waxayna doonaysaa inay gaado Jack ilaa markii dambe ay ku soo booday Coley kadibna ay kaga dhufatay madaxa dhagaxan ilaa uu markii dambe qoorta qabtay kadibna uu ku tuuray dhulka.
lugaheeda ayuu soo jiiday waxa uuna madaxa ka saaray baaskoolad waxa uuna ku leeyahay waad dhimanaysaa isagoo raba inuu xabadii ku dhufto ayaa hal mar garabka waxa kaga dhacay xabad Jackna waxa uu ku dhacay dhulka ilaa markii dambe Jack isku dayay inuu baaskoolada soo qaato laakiin waxa uu ku leeyahay isdhaqaaj Jack waa uu qoslayaa ninka Afrikaankaana waa uu yaaban yahay laakiin khiyaano ay ahayd gadaal ayuu waxa uu kala soo baxayaa baaskoolad waxa uu ku dhufanayaa ninkii isaga iyo ninkii Afrikaanka ah waa istagaalayaan waxa uu ku qabsanayaa qorigii uu watay laakiin ninkii Afrikaanka ah waa uu iska celinaya ilaa markii dambe dhulka ku dhuftay Jack madaxana uu cirib kaga dhuftay waa uu soo jeestay ninkii Afrikaanka ah ilaa uu arkay Coley oo xabad ku haysa ilaa markii dambe ay arxan daran u dishay sujuudana xabad kaga dhufatay waxay aragtay doonidan yar ee halkan taala kadibna doonidii ay soo fuulaysaa si ay uga talowdo dhinaca kale laakiin nasiib darro xabad ayaa ku dhacday Coley waxayna fiirinaysaa dhinaca xabada looga soo turay waxayna arkaysaa wali inuu Jack nool yahay isla markiiba qorigeeda ay soo qaadanaysaa waxayna doonaysaa inay Jack disho laakiin xabadii ay iska seegaraysay qorigiina xabadii waa ay ka dhamaatay Jackna waxa uu soo quusay biyihii way garan laaday Coley jahada uu ka soo bixi doono ilaa markii dambe uu gadaasheeda ka soo baxay biyihiina uu ku soo tuuray lugta ayuu waxa uu ka galiyay mindi ilaa uu markii dambe dhuunta ka qabtay Coley waxa uu ku ceejinayaa biyaha ilaa ay markii dambe tooridan ka heshay biyaha dhexdooda kadibna ay ka galisay dhuunta Jack halkaas ayuu ku dhuntay waliba si arxan daran kadibna waxa ay ku tuurtay biyihii Coley waa dhaawac waxayna iska xiraysaa meeshii uu mindida ka galiyay Coley waa ay ka soo baxday kayntii waxayna soo qaadatay gaarigan kadibna waxay timi guriga uu degnaa Daniel oo ah ninka gangsterka ee maafiyadan haysta waxayna ku leedahay maxaad iga doonaysaa balse Daniel waxa uu ku leeyahay waan ku jeclahay waxaan rabaa inaan nolosheena sii wadano caruurtiina aad ii soo celisid Coleyna waa ay qoslaysaa ilaa markii dambe ay boorsadan ka soo saartay gaanjadan furaha weeg kadibna way u dhiibaysaa waa uu fiirinayaa gaanjadii way ka soo baxaysaa ilaa ay bombadii ku qaraxday halkaas ayuuna ku dhintay isla markiiba gurigeeda ayay timi waxayna dhunkanaysaa caruurteedii Coleyna halkaas ayay ku badbaaday daawadayaal filimkeennii maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynay fadlan muuqaalka like saar si uu gaaro dad badan channelkan haddii ay tahay markii kugu horeysay subscribe noo saar waa ku mahadsantahay mar kale daawashada muuqaalkan